أفاعيل هدو نغو شاكتو بو إلهي تبارك وتعالى اسكدا قرآن دني هدو وحير نغو شاكو هدو إلهي بوحا إيسو دي هين لأخذنا منه وانقبنينا باليمين حوق بانو قبلنا يمين كما ميدك تو هذه جار محي متشاه حوقي متشاه بدح يميت ويكون حوق بدنت لكن ضد بدحود حوق بدنت صح تذكر بدح لياشا يا حنو مرن ها غوشيه حاط الغوشيه ودر بدح ليو غوري غوري اوكي dadku waa saddex laba gacan leh midig iyo bidix midba wata qaar dadka qaar qaarna waa bidix leh qaarna waa midig leh ya culimadu waxay dhadaan waxa ugu aqli badan ninka labada gacmood leh isku midka ay yihiin xagga intelligence waxa ku xiga ka bidix dadka caadiga waa midig ma normal laana isagu waa caadi gibi ninka bidix wax ku qoray okay dadkeena qaar waxa jira sunnaha nabiga inaan barno way fiican tahay qofkii ilaahay wuxuu abuuray bidix dhig bidix mid wax ku qorba qof ilaahay saasuu abuuray bidix inuu wax ku qoro waa uu sameeyay anaguna waan qasbayna cuntada waxayna ka celino waa sax weeyaan laakiin la baro laakiin la raxba ku qorin dadka bidixlaasha waxa kamid ah Umar ibn Khattab bidix loo habeeyay saasuu aqli badna Umar ya عرفت واحد ترى هذا كله طويل أحمق إلا عمر أو دار موقت بدارنا والله مدول أو دار وضقم بيننا وحن عمر هين مركا عمر بن الخطاب عقلي بهم إلى هالشيء إلا والنبي يقول هدول النبي صوبح إلى عنيد يقول لها عمر رضي الله عنه. أوكي